bulshada rayidka ah ee gobolka Carta ayaa xaflad ballaaran ku qabtay degmada Weeca oo ka tirsan gobolkaasi. xafladan oo ujeedada loo qabtay ay ahayd hambalyo ku wajahan midhihii ka soo baxay ololihii doorashada ee dhawaan ka dhacay dalka. dhalinyarada haddaba iyo hooyooyinka culibaa udiinka iyo dhammaanba bulshada reer Weeca ayaan u kala hadhin qabanqaabadan. barnaamijkan oo ahaa mid si weyn loo soo agaasimay ayaa qada sharaf loo sameeyay dadkii iyagu codadkooda dhiibtay ee ugu deeqay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle. goobtaasi waxaa ka hadlay dad fara badan oo kala duwan, bal haddaba aynu dheehano qaar iyagii ka mid ah iyo wixii ay yidhaahdeen. kelmad baan nidhi mudane madaxweyne annaka nagu talagal baan nidhi, haddaan nahay gobolkii Cartaad nagu talagal baan nidhi. tiina way dhacday, waa dhammaynay. waxaan leeyahay madaxweynaha Jabuuti maxaa ku dhahay shicibka Jabuuti hambalyaan leenahay hambalyo. salaam baan madaxweynaha u diranaa kashka iyo laabta. annaka u yeedhanay madaxweynaha hadda u maleeyaa dumarow ballantana waa inaan adkaynaa. waxaan ta kale mahad u celinayaa dee geedka haddaan biyo lagu shubin muu beermaa. dee rag baa guntiga u xidhay oo dharaar iyo hameen shaqadoodii dhulka u daayo Jabuuti u yimiday. waa la sheegay rag Jabuuti jooga rag teelay ka yidhaah, laakiin waa been. raggani waa natiif, waynani wala hor joogaan. aabayaashoodii awyaashood baa la garanayaa. waxaan leeyahay raggaa dhixirka u xidho weliba kale. waxaan kaloon ku xijisiinaya hooyo waxaa jirta innakay nagamida oo bugta oo jiifta waa raggii tabay ee yidhi soo kiciya ha vootayse. raggaasi mahad weyn bay leeyihiin. hadda bilisa uma tahay mise maaha. markaa waxaan kaloo hadal ku hambalaynayaa hooyada mii iyo magaalaba Khadra Maxamuud Xayd oo bilis haddaan nahayba aan leenahay hambalyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ugu dambeyntii barnaamijkaasi waxaa soo gunaanaday taliyaha ciidanka booliiska jamhuuriyadda Jabuuti Korneyl Cabdilaahi Cabdi Faarax, waxaana ereyadiisii ka mid ahaa. waxaa farxad weyn annagoo halkan isku nimanay yar iyo weyn, aabiyo hooyo, wiil iyo gabadh, si aan halkani u muujino taageeradii aan la garab galnay madaxweynaheena, uguna hambalyeeno guushu gaadhay isaga iyo marwadiisaba. taayina waxay ka jawaabaysaa ballamaan qaadnay oo odhanaysa haddii lanagu xamanayay jaamagarato macaarad baa ku dhex jira, inaan muujinay inuu magaaradka naga dhex baxay oo nadii toole madaxweynaha dhammaanteenba aan wada daba joogno, kuna muujinay natiijadii ka soo baxay saxaaradaha. wax waa hadal, waxna waa ficil. ficil baan ku muujinay anagu. taasi waa munaasabadda halkaan isku nimadnay. waxaa intaan raacin oon ku daraya waxa weeyaan marka la yidhaha jaamagarato ummad dhan oo ilaahay meel ku wada abuuray, ku ima ku dhashay iyo ku hore ugu dhashay iyo ku waalidkii ku dhasho ka tegayba gebi jaamagarato la isku wada yidhaha. nin mangaaban unbaa sheegto yidha anaa ku dhashay kii hore kuma dharin, laakiin waa lagu wada dhashay, waana loo wada dhashay. waxaa ka muhiima ay murtidu tahay dadku waa dad isleh, waa in is wada dhashay oo meel la kala tegin, noocoo doona ha noqday. waxayna ummad meel ku wada nool, ilaahay meel ku wada abuuray oo is wada dhashay ee wax ku gaadhaa isku dubni. waxay wax ku gaadhaa ismaqal. waxay wax ku gaadhaa nidaam iyadoo nidaamsan. علي أحمد ربيع علي سيو هون كيبل تي في Weeca Jabuuti.